الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaa laga soo hadlay sidaad maqlayseen muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo ijtimaaca iyo sutaga oo Dr. Xasan Sheekh Cali uu ka warramay. waxaa ku xigay Sheekh Mustafa oo inooga warramay asbaabaha isu keenaya dadka, oo ay ka mid tahay luqadda, ka mid tahay diinta, ka mid tahay dhulka, ka mid tahay afka, ka mid tahay maslaxadda mushtaragga ah. wuxuu inoo sheegay Sheekh Maxamuud ilaahay subxaana wa tacaala khayr siiya isaguna waxyaalaha hor istaagi kara ay ka mid tahay jahliga, dad isku jahli iskhilaafayaan. aniga waxaa la igu soo aadiyey inaan ka warramo tusaalayaal taariikhda ma dhacdo ummaddu inay inta kala tagtay ay midowday oo danadeeda u midowday oo midnimo yeelatay walaaltinimada oo actasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafarraqu, taasoo ay ka dhalanayso siduu culimmadu sheegeen xoog baa ka dhalanaya, waxaa ka dhalanaya guul, waxaa ka dhalanaya dad walaaltinimo, waxaa ka dhalanaya maslaxo. waxyaalahaas oo dhan ilaahay uu waajibiyey midnimada ayaa ka dhalanaysa. marka tusaalayaashaas inaan wax ka soo qaadqaado waa midda u horreysa ee tusaalaha koowaad horta waa islaamku sidiisa waa midnimo. ilaahay la isu wada dhiibay oo dad ilaahay subxaanahu wa tacaala isu wada dhiibay oo ilaahiyadii kale oo dhan ka soo tegay, ilaahiyadii kale oo baatilka ahaa, kii naftooda, hawadooda, qabiilkooda, danahooda, asnaamtooda, adduunyadooda, shahawaadkooda, waxaasoo dhan oo aaliha ah ay samaysteen bay ka soo tageen, kaasay ilaahay isu wada dhiibeen, waa midoobeen. marka kowna waxaa ka ah ummadda islaamka kow nebiga calayhi salatu wasalaam islaam ku miday, ummad caraba, ummad farisiyiin ah, ummad ruumaan ah, ummado kala duwan, kulligood waxay noqdeen walaalo, halkaa diin bayna ku walaaloobeen oo aan la kala xigin, oo aan loo kala sokayn, nin iyo iimaankiis ilaa bitaqwa ay noqotay. taasaa horta kow midnimada halkaasa horta tusaalaha koowaad ku cadda. sidaasoo kaleeto muslimiinta khilaaf iyo dhibaatooyin soo kala dhex gelaya, laakiin mar walba ma ka guulaysan karaan hadday u noqdaan asalkii mar walba way ka guulaysanayeen, way dhacday. waxaa ugu horreey masalan caamul jamaaca markii haddaayana uu tilmaamay Sheekh Xasan oo muslimiinta 41 hijriyada markii waxyaala khilaafaada ay saxaabada iyo ay dhex mareen iyo muslimiintii oo dagaalo dhex mareen waa heshiiyeen, sulxi baa dhacay. nebiguna calayhi salaam uu sii sheegay sulxigaasina wuxuu ku yimi isu tanaasulid iyo walaaltinimo iyo ilaalin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo amartiisii. caamul jamaaca baa dhacday, waa isu yimaadeen muslimiinta xoog bay heshay. sidaasoo kale taariikhda soo martay waxaan tilmaamayaa dhowr meelood oo yacni tusaalayaal ah oo taariikhda muslimiinta soo maray ayna u tahay tusaale markii ay muslimiintaasu midoobeen waxaa dhacay adduunka inay sidii ilaahay ugu talagalay ay ka hormareen oo ay hoggaamiyeen waxaan soo qaadanayaa dhowr yacni macrako ama dagaallo ama goobood oo taariikhda islaamka caan ku ah oo mid walba ay ahayd marxalo ama waqti waxaa ka horreeyey daciifnimo iyo kala tagsanaan iyo tafaraaruq ayaa ka horreeyey. waqtigaasna sababihii markay muslimiintu u noqdeen laga rabay guushaasay gaareen iyo guulo la mida. waxaa kow ka ah masalan haddaad maqasheen ama taariikhda aad ku aragteen macraka la dhihi jiray mulaad karad. waxaana galay nin boqor muslima ahaa oo muslimiinta markaa ku mideeyey oo ku jihaadayey, gaalada kaga adkaaday, ee la dhihi jiray alf arsalaan oo turki ahaa. 463 hijriyada ayay dhacday, 463. hadda waxaan ku jirnaa 1439, waa taqriiban 1000 sano oo wax dhiman, 970 sano ka hor waay. weli taariikhda adduunka oo dhan bay ku jirtaa معركات هذا أيوة وقت المسلمين أنت ستجين مدوبين إلهي يقول نقدين توبت كينين ولا رب نقدين فإلهي يقولش يسيء من نمريسي وحكوا حكتا وكلة التاريخ قصوا علينا معركة يناه تاريخ قوب كلا فاصل وواحد على أفر بقول يتضواتن يسقالكي
waqtigaas kadib taqriiban dhowr iyo 10 sano laakiin xagee ka dhacday middan waxay ka dhacday aasiyada fog bay ka dhacday 460 iyo 3 middan kale waxay ka dhacday Andalus iyo Spain bay ka dhacday muslimiintii oo dacfi ku jiray oo kala qaybsamay oo 27 dawladood u qaybsamay ayaa dagaalkaas mideeyay oo waxa mideeyay inay isu tageen walaaltinimo kale muraabitintii ka yimi Maghrib iyo Morocco iyo kuwii Andalus joogay midoobeen walaalo noqdeen dagaalkii wada galeen gaalada jabiyeen 400 oo sano ay muslimiintu dib waxay baaqi ugu noqdeen Andalus inay sii joogaan waxa kale oo ku xigto oo lamid ah macrakadii dhacday ee la dhihi jiray Xittiin ee Baytul Maqdis lagu xoreeyay markii ay Saliibiyiintu qabsadeen kadib muslimiintu markay Baytul Maqdis xoreeyeen 400 iyo siyaado sano way gacantooda ku jirtay markii ay daciifeen oo diintoodii ka tageen oo khuraafo iyo heeso iyo maala yacni iyo kala qaybsanaan iyo daciifnimo iyo isdiyaarin la'aan ay noqdeen waa laga qaaday dhulkii iyagana waa lagu tuntay waana la baabi'iyey dhiigoodina dhulkaa lagu baabi'iyey waxay soo noolaatay markii Nuuruddin iyo Salaaxuddin iyo raggii la mid ahaa ee muslimiinta u kaceen oo ay mideeyeen ayaa 483 Salaaxuddin ugu guuleystay Baytul Maqdis macrakatu Xittiin inuu xoreeyo oo uu ka saaro laakiin goorma muslimiintu isu tageen oo Shaam iyo Masar iyo Yemen iyo Ciraaq qaybo ka mid ah iyo Turkiga qaybo ka mid ah iyo dhulkaas oo dhami ay hal hoggaan iyo hal nidaam iyo cadaalad iyo islaamku socodkiis ay diintooda cusboonaysiiyeen oo u noqdeen oo ay ka tageen kala qaybsanaantii iyo tafaraaruqii ay ka tageen ilaahay uu soo celiyay guush 580 iyo 3 bay dhacay waxa kale oo ka mid ah tataarku markii uu yimi oo khilaafadii uu burburiyay 656 waxaa la baabi'iyay Baghdad waa lagu tuntay 2 milyan baa lagu dilay buu leeyahay Ibn Kathir rahimahullah ta'ala 2 sano kadib gudaheed markii muslimiintu ay diintooda u noqdeen oo Masar qaa'idkii uu ku hogaamiyay midnimo iyo wadajir iyo musaalaxo iyo sulh dhexdooda khilaafaadkooda siyaasiga ay hilmaameen oo isu yimaadeen ilaahay gulbisiye 658 waa 2 sano kadib markii tataarku ugu guuleystay Baghdad 2 sano kadib baa guush ilaahay u bedelay maxaa dhacay iyaga waxay u noqdeen asbaabtii laynoo sheegay ee midnimada iyo wadajirka iyo guusha iyo xoogga ayay u noqdeen taasuna tusaale kale ayay ahayd waxaan ugu dambeyn soo qaadanayaa markii Cusmaaniyiinta ah ee Turkiga xukumay adduunka 600 sano ka talinayay 300 sano waliba waxaan adduunka oo dhan iyagu inay amarkiisa ay bixiyaan hala yaabinina markaad arkaysaan nimankan inay madax taagayaan oo sida dadka kale ayaan ahayn oo maaragtay Turkiga gaaladu markay amar siiso oo hadda Erdogan tiraahdo waxaas iyo waxaas oo maaragtay u hadlaayo sida nin cizile oo amar leh waana awoowayaashiis iyo awoowayaashood iyo awoowayaashoodii kale niman gaalada ah canshuura ka qaadi jireen Yurub looga cayini jirin nin madaxweynaha wadamada soo xiga Turkiga ilaa suldaanku u ogolaado lama magacaabi jirin marka wixii baa ku soo duxaya ma qaadan karo dulliga ma qaadan karo hadal xun ma qaadan karo dullinimo ma qaadan karo qof markuu cizo iyo taariikh uu leeyahay marka Maxamed al-Faatix 857 hijriyada ayuu furtay magaalada Qustantiniya la yiraahdo ama Istanbul la yiraahdo 2 sano kadib markuu xukunka hayay wiil yar oo 20 jir buu ah 21 jir idinkoo kale laakiin maxaa ku jiray cizo iyo sharaf iyo diin ya iyo islaamnimo ayuu maaragtay ku riyoonay 655 buu ku wareegay xukunka aabihiiska markuu u dhintay 857 magaalada Istanbul buu furtay adduunka oo dhan uu ka talinayay muslimiinta tusaalayaalkaas oo dhan waxayna tusayaan in dacfiga maanta jira kala qaybsanaanta maanta jira ma Soomaaliya kaliya caalam islaami 57 dawladood uu qaybsan laakiin soo noqonaysa insha Allah ta'ala soo noqonaysa ha waa goorta raggeedii yimaadaan Soomaaliya ma midoobaysa dib ma u midoobi kartaa oo dad muslimiina oo xoog leh oo sida jiraan noqon kara ma noqon karaan ha insha Allah ta'ala noqonaya laakiin waa goorma ma ha ku maanta joogo sida xaaladdeenu ay tahay inaga ma hayna dad qabyaalad u kala qaybsan ma reer hebel baa
أنا غير هالبان ليش على قفكم مسكح دي سايساتاي لا يمكن والله بالله تالله يكر يوم إني أمت نكون كران أما ضد نكون كران يكر يوم ما تذكر تاريخنا منه شيء تاريخنا وحين نو شيء إسا ضد كيلها إسلام لماذا ضد كيلها أخلاق الإسلام كلا نو شيء الرميسان إلى مدين كواس أيام مدني ماذا كينية إلى هنا قعنت أقلنية شرفت أي عسدنا السينية إنك مركا أوشك ويدي فري مرة من عسدنا ونقولنا إسلام نمدي ولا تنمدي أنا نقول قبيلات دي كلا قيف سنات دي كلا قمناتنا مشاعر صار مرة من عسدنا كجرنا هيك صحيح هيك قرع الباب مركا كبحضان السوق قيبية والله ده سوق قيبية maxaan kuu sheegay waxa aad maartay meelaha la fadhidaan ku fadhiya idinkuna ku bishaaraysta dulinimo inaad ku jiraysaan oo la idin qabsanayo oo hareerihiina ku joogo shalay idinka aad sadaqada siin jirteen ayaa idin talinaya saasay noqonaysaa tusaalayaasha taariikhduna waa markhaati waana macallin anagu intaasan ku soo koobaya ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkaana waafajiyo وديتو إلهي سبحانه وتعالى سخير لو قلنا الله نقدره صلى الله على نبينا محمد وعلى آله